calacalka iyo isku daba jiidka aan u naqaano kismaayo ka dega maanta karaan haday kismaayo tageen jilibna inay tagaan waa awoodaan waa salaamatihiin intaas ka bacdi intii la dhihi lahaa qayaartii aad tiri wax badan inaan ku daro ma rabo waxaad ogsoontihiin in magaalada Muqdisho ay nabadoon tahay ay xasiloon tahay lana la dirirsan yahay nabadda iyo xasiloonida ka jirto rag waxa jiraan la yiraahdo madasha calacalka iyo isku daba jiidka aan u naqaano kismaayo ka dega maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo ragaas kuwa kismaayo tageen wax kasta ka suuraabo wax kastana way suubi karaan haday kismaayo tageen jilibna inay tagaan waa awoodaan kismaayo ma haysto jilibna nimana haystaan marka ninka kismaayo tagay jilibna waa tii kariyaaho wax uu ka xishooyaan jirinba marka waxaan rabaa inaan iraaho kuwaas ummadan wixii ku soo kordhiyeen malaha wadanka doorasho ka jirto nabada ka jirto madaxda qaranka aad ay u mahadsan yihiin waxaan rabaa intaas inaan ku daro nin la yiraaho nabadoon Xuseen Xaadoole ay leeyihiin oo maanta la wareysay arkay kismaayo ka degay Xuseen Xaadoole cid uu matala ma jirto kismaayana sidaadaba cid kasto kunuudi ama cid kasto oo sabgaada way tagi kartaa oo maxaa yeelay nimaan la adeegsan inama oo wax tar leh maba ka degin ba kismaayo waa arkaysino dad siyaasadda ka saqiiray oo siyaasadda aqoon u lahayn oo karti u lahayn ayaa kismaayo ka degay marka waxaan rabaa inaan intaas ka iraaho tan kale waxaan rabaa inaan wax yar ka iraaho ninka la yiraahdo Daara Amiin Jeeso oo yiri gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanka federaalka isku daro oo aflagaaday yiri ma aha jinsiyadooda iyo waxa wax ka yiri mar raba inaan Daara Amiin Jeeso aniga ku fogaado Daara Amiin Jeeso cid la yaqaano ka dhashay oo talweynaha oo aad u jeclahay laakiin jinsiyadiisa waxaan ognahay si shakhsi ahtiis waa ninkii laba nin oo is aruusi kartaa yiri marka ninkii laba nin oo is aruusi kartaa yiri wax kastana waa ka suuraabaan waa ninkii yiri laba hadii leega dilo lama dila qeyr mas'uuliyad intaas la qof le waay marka waxaan rabaa intaas inaan ku soo gabagabeeyo aad u mahadsantahay wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha